raggaan u jeediin waxay imaadeen dhulkeenna Soomaaliya qaasatan deegaanada Puntland way ka dagaalamayeen maalin ayaa la dilay waxaana dilay geesiyaal Soomaaliyeed oo dalkooda iyo deegaankooda difaacanaya dadkan waa Daacish dhulkeenna waxay ka soo dooneen lama yaqaano laakiinse hadafka ay u imaadeen waa Soomaali inaysan degin marnaba gees to gees al-shabaab ay nagu beereen haddana Daacish waxay rabaan inay Soomaaliya ku beeraan haddii al-shabaab ka adkaano waa laakiinse maanta labadooduba ka adkaa karnaa dadka Soomaaliyeed waa inay baraarugna sanadaan sidoo kalena dhalinyarada Soomaaliyeed ay ogaadaan dalkooda waxyaabaha ka socdo dalkooda meel kasta cadow ayaa joogo inay ogaadin waa sidoo kalena qabyaaladu al-shabaab ay dhashaa al-shabaab maalin waxay isku dirtay ama se ay soo dirtay dhalinyaro Soomaaliyeed waxay u soo dirtay dhalinyaro kale Soomaaliyeed kuwaasoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kamid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ku maqan fasax oo deegaankooda ku soo laabtay ayay dileen waxay noqotay marka in dadkii Soomaaliyeed ay u bedelaan ama se ay u fahmaan inay tahay qabyaalad laakiinse dadka ka dambeeyo aysan fahamsanayn oo soo dirsay dadkan maadaama ay u arkaan cadowgooda koowaad kuwa maalin kasta la dagaalama ay yihiin marka qabyaaladana waa wax ugu xun baraha bulshada dadka ka hadlaya ka qeylinayo waxay joogaan qurbo maalin kastay qeylinayaan dadka isku dirayaan kuwaasoo kale baraha bulshada inaan ka xirno oo robot siinana muhiim ay tahay xilligan la joogo 2025 la galay no more qabyaalo qofku qeylinaa daaragtiin robot dhaha maadaama amniga Soomaaliya qalqal u gelinay qofkaas dawladda Soomaaliya way sheegtay